Maxkamada Gobolka Marodi oo maalinkii shanaad ku guda jirta xukunadii ay guridaysay dadka sifada sharci darrada u soo gelinaya qaadka gudaha caasimadda ayaa waxa ay maanta xukun guriday 12 eedaysane iyo weliba 4 baabuur oo ay wateen fadhi ay maanta maxkamadu yeelatay ayaa 12 ka eedaysane mid kamida lagu waayay dambigii lagu soo ogay halka 11 eedaysane iyo weliba baabuurtii ay wateen lagu riday xukun dhan 3 sanadood oo xadhiga iyo weliba 3 milyan oo ganaaxa baabuurtii ay wateen sidaas ay dawladdu kula wareegtay waxaana soo qabtay 12 ka eedaysane ciidamada booliska ee saldhigga degmada Gacal Libaax ee magaalada Hargeysa waxa halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka Marodi Cabdi Fataax Yuusuf Cabdi iyo garsooraha maxkamadda gobolka Marodi Xasan Axmed Maxamed waxaanay faahfaahiyeen xukunkani iyagoo fariin dheerna u diray bulshada isla markaana ku baaqay inay raacaan qodobadii ka soo baxay guddida heer qaran ee ku wajahna joojinta qaadka xafiiska xeelaantu wuxuu soo eedeeyay maanta 12 eedeysane oo lagu soo qabtay qaadkan laga joojiyay badeecada inay soo galiyaan Soomaaliland waxa jabiyay go'aamadii guddida heerka qaran ee ka hortagga xanuunka caabuqa ee COVID-19 la yiraahdo ee madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha u yahay dhamaantood maxkamadda furan baa iyadoo saacadu imika labadii ahba maxkamadda hor keenay dhamaantood warqaatiyadii baan hor keenay caddeymii baan hor keenay waxay wateen eedeysanayaashaasi oo imika noqday dambiilayaal 4 baabuur ay ku soo galiyeen qaadka laga mamnuucay maxkamadiina waxay ku xukuntay maanta 3 sano iyo 3 milyan waxaan laga wareegay hantidii ay wateen baabuurta ay wateen haddaba dadweyne waxaanu sheegnaa maalin walba maanta maalintii koowaad labaad waa maalintii shanaad maalinta ka dambeysay soo badanayaan hantidii ay lahaayeen baa qaranku kala wareegaya waxaan waxba ahayn maalin walba qaranku soo gelinay dadweyne waxaanu sheegnaa in waxaan iska daayaan oo ay qaataan awaamirta dawladda waxaan dawladdu ay joojinaysaana waa danta ummaddu baa loo eegaya xanuunkii waxyaalahan si ay u joogsadaan waxa la joojiyo muddo yar kooban dadweynaha waxaan aad iyo aad ula talinaynaa waxyaalahan iska daayaan go'aanka maanta ka soo baxay maxkamaddan oo ku qanacnay hal eedeysano oo maxkamaddu dambi ku waday nimanka la socdaan maxkamaddu xorriyadda u celisay maxkamad gobol ahaan maanta waxa la hor keenay 12 eedeysano oo lagu soo qabtay jaadkaas wadanka laga mamnuucay iyagoo ku siday 4 gaari hal gaari oo dheena iyo 3 gaari oo fitisa maxkamaddu xukunsanayaasha dambi bay ku heshay 12 kamid ah waxay ku xukuntay 3 sano iyo 3 milyan oo ganaaxa halka hal eedeysano maxkamaddu waxba ka hor cadaan waayay oo xorriyadiisa loo celiyay waxaan halkan imika ku wareejinayaa baabuurtii xukunsanayaashaasi ay wateen taliyaha oo laga wareegay si uu ugu sii wareejiyo maamulka ka sareeya halkan waxaan dadweynaha uga sheegayaa waxa jaadka loo joojiyo danteena caafimaadkeena caafimaadka qofka caafimaadka bulshada waxaan uga digaynaa oo halkan dardaaran uga direynaa inay ka waantoobaan ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Gacal Libaax ee magaalada Hargeysa Khadar Faarax waxaan maxkamadda maanta hor keenay 12 maxbuus 12 maxbuus xukun baa ku dhacay iyo 4 gaari xukun baa ku dhacay waxa weeye waxaanu deew ku jirnay awlgalkii isdaba joog ahaa ee aynu ku dabar jaraynay maandooriyahan la joojiyay la soo gelinay magaalada